السلام عليكم. soo dhawaada saaxiibayaal. Mowduuca muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa sida lacag loogu sameeyo online adigoon haysan wax lacag ah. Haddaba muuqaaladii hore waxaan kaga soo hadalnay sida aad lacag ugu sameyn karto ama sida aad lacag ugu sameyn lahayd internetka si tusi oo taabsi ah. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa sida aad lacag ugu sameyn lahayd website lagu magacaabo Adstera oo ah website u shaqeeya sida AdSense oo kale. Waxaad lacag kaga sameyn kartaa dhowr hab oo kala duwan, balse muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa sida lacag loogu sameeyo Adstera adigoon website lahayn, waana waxa loo yaqaano direct link. ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad akoon ka soo furato Trust Wallet ama Webmoney Midcode. Sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad akoon ka soo furato IMD Box ama Timebox Midcode, inaad akoon ka soo furato Adstera, iyo inaad linkiga aad u hesho views iyo clicks si aad lacag ugu sameyso. Inaad haysato Gmail account si aad akoon ugu furato website-yada aan ku soo sheegay dhammaantood. Sida Gmail loo sameeyo qof waliba ayaa garanaya, waana ka socon doonaa. Sida loo furto ama loo sameeyo Trust Wallet muuqaal ayaan uga hadlay, waxaadna ka heli kartaa muuqaalka aad daawanayso hoostiis, gaar ahaan qaybta description-ka. Sida loo sameeyo akoon IMD Box ah waxay nagu saacidaysaa inaan direct linkigeena u helno views iyo clicks badan si aan lacag ugu sameyno. ugu horreyn waxaan soo kicin doonaa mid ka mid ah browserada moobilkeena ku jira, kadibna waxaan ku qoraynaa imdbox.com in akoon lagu furto website-ka imdbox.com. inaan akoon ka furno imdbox.com waxay nagu saacidaysaa inaan direct linkiga aan rabno inaan lacagta aan kaga sameyno online-ka ayaa waxay noo suuragelin doonaa inaan u helno views iyo clicks fara badan. Sidaas darteed website-kan hore ayaan uga soo hadalnay anagoo aan uga soo hadalnay qaab ka duwan qaabka aan maanta uga hadlayno oo ah in lacag lagu sameyn karo. Laakiin maanta waxaan kaga hadli doonaa si ka duwan sidii hore. Dhammaan website-yada aan ka hadli doono iyo waxyaabaha muuqaalkan khuseeya oo dhan waxaad heli kartaa linkiyadooda qaybta hoose ee description-ka. Haddaba ugu horreyn si aad markii aad kusoo dhufato linkiga oo page-kan ayuu ku keeni doonaa. La'alla hadduu ku keeninna waxaad tagi doontaa halkaas ay ku qoran tahay register. Markaad register aad kusoo dhufato page-kan ayuu kuu soo furmi doonaa. qaybtan koowaad oo ay ku qoran tahay username si aad akoon uga furato. qaybtan ugu horreysa ay ku qoran tahay username waxaad ku qori doontaa username oo ah magac gaaban oo aadan ilaawi doonin. qaybta labaad waxaad ku qori doontaa Gmail-kaaga ayaad gelin doontaa ama email-kaaga. qaybta saddexaad oo ay ku qoran tahay password waxaad gelin doontaa password kuu gaar ah. Confirm password meeshay ku qoran tahayna mar labaad ayaad gelin doontaa passwordkii hore. Halkan ay ku qoran tahay I am not a robot ayaad tick saari doontaa, kadibna halkan ayaad tick sii saari doontaa, waxaadna ku dhufan doontaa create account. Sidaas ayaadna akoon ugu sameysan kartaa. Aniga hadda uma baahnin akoon cusub inaan sameyno, balse waxaan kacsan doonaa keenii hore. Halkaas ay ku qoran tahay login ayaan geli doonaa si aan u kacsano ama si aad u kacsato markaad sameysato kadib. login markaad ku dhufato wuxuu ku weydiin doonaa step-kan inaad ka gudubto si uu u hubiyo security-ga. halkan ayaad tick saari doontaa. tick markaad saarto wax yar ayaad suganaysaa, kadibna isagaa kaa gudbin doona. halkan ayaa sidaan ayaa kaga soo bixi doona. halkan ay ku qoran tahay username or email. waxaad gelin doontaa email-kaaga ama username-ka aad ka soo sameysatay akoonka. halkanna waxaad gelin doontaa password-kaagii. kadib halkan ay ku qoran tahay I am not a robot ayaad rakabjahan ayaad ka gudbaysaa oo halkan ayaad tick saari doontaa.
markii uu sax uu ku saaro halkan ay ku qoran tahay sign in oo loola jeedo gudaha u gal ayaad ku dhufan doontaa. kadibna wuxuu kuu sii gudbin doonaa gudaha. markii aad akoonka dhex gasho sidaan ayuu u muuqaan egyahay ama sidaan ayuu u egyahay. haddii aan halkaas oo saddexda xariijimood ah aan taabano, marka hore wax walba waxay yihiin zero ama waa wada ewer. meelahan ay ku qoran tahay coins iyo meeshan kale, labadan meeloodba adiga waxay ku noqon doontaa 00 ayay ku noqon doontaa, sababtoo ah akoonkaaga ayaa cusub. balse aniga waxaan marka hore aan idin tusi doonaa sida coinskan loo helo. si aad coinskan u hesho, waxaad imaan doontaa halka ay ku qoran tahay shop now. shop now markaad taabato, waxaa kuu soo bixi doona boxyo la furanayo. boxkan koowaad waa free oo hal mar ayaad furan kartaa. boxkan waxaad taabanaysaa si aad u furato buy for 6 coins ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato isaga ayaa si automatic uu kaaga furmi doonaa. sidoo kale waxaa jira boxyo kale oo aad gadan karto oo lacag yar aad ka gelin karto, sida $1 iyo wixii lamid ah. boxkan oo kale waa 1200 coins, waa lacag sintiyaal ah. sidoo kale boxkani waa 6000 coins, qiimihiisa waa lacag $3 iyo wax noocaasa. boxkanna waa 30000 coins, isagana waa lacag $5 ah. haddii aad hal mar aad geliso lacag intaas ah $5 ama $3 aad geliso, kadib maalin walba qaabkaas ayaad u aruursan doontaa. halkan ayaad imaan doontaa, maalin walba waxaad ku dhufan doontaa collect money. halkan ayaad taaban doontaa si aad u aruursato coinska ku aruurayo. markii aad aruursato kadibna waxay tegi doonaan halka oo balansiga. halkan markaan imaano, markaan ku dhufano, halkan ayay imaan doontaa. sidaad arkaysaan waxaa igu jira 187 coins, hoosna waxaa ku jira 407. haddaba si coinskaaga aad ugu bedelto purchase balansiga oo si aad wax ugu iibsato, halkan ayaad imaan doontaa ay ku qoran tahay exchanger. markaad ku dhufato, isaga ayaa si automatic uu kaaga soo qaban doonaa inta coins aad bedelan karto. kadibna waxaad ku dhufanaysaa exchange. markaad dhahdo, isla markiiba wuu ku bedeli doonaa. sidaad arkaysaan 187 coins wuxuu ka dhigay 755 coins, sida taariikhda aad ka arkaysaan. kadib waxaan u laaban doonaa, dib ayaan u laaban doonaa markaad coinska meeshan aad ka hesho. maadaama aadan lahayn wax social media ah, waxaan qaabkan ama xanaankan aan kuu tusayaa inaad kaga faa'iidaysato qaab hayeysiin ahaan website-kan. mideeda kale, waxaa kaloo lacag kaga sameyn kartaa. halkan ayaad imaanaysaa ay ku qoran tahay daily bonus. wuxuu ku siin doonaa maalin walba ama 24 saacadoodba mar ayaad coins aad kala bixi kartaa. hayeysiinada mid ka mid ayaan ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato kadib waad iska kansalaysaa oo dib ayaad u laabanaysaa. badhankaas oo ay ku qoran tahay get bonus ayaa kuu soo qormi doona. badhankaas ayaadna taaban doontaa. isla markiisba waxaad heli doontaa coins yaryar ama oo 1 ilaa 1000 ah. 4 coins ayaan hadeer aan helnay. bonuskeena 4 coins ayaan ka helnay. kadibna waxaa kaloo aad lacag kaga sameyn kartaa isla bartii haddaan aan tagno oo saddexda xariijimooda sare. waxaa kaloo lacag kaga sameyn kartaa view ads meeshay ku qoran tahay, oo ah inaad website-yo aad booqato iyo hayeysiino, sidaasna aad lacag kaga sameyso. haddii aan booqano mid ka mid ah hayeysiinadan mid ka mid ah, haddaan booqano midkan ayaan booqan doonaa ay ku qoran tahay coinbio. markaad taabato ka bacdi wax yar ayaad suganaysaa. halkan hoose qaybtan future-ka ayaa waxaa kuu soo qori doona daqiiqado ama ilbiriqsiyo ayay ku qaban doonaan. ilbiriqsiyadaas markii ay dhammaadaanne wuxuu ku weydiin doonaa su-aal oo aad uga gudbayso oo uu ka hubinayo inaad daawatay ama inaad booqatay hayeysiintaas iyo in kale. markuu dhammeeyo kadib wuxuu ku weydiin doonaa su-aal. aniga hadda wuxuu ii weydiiyey 6 lagu daray 2 waa imisa? waa 8 ayaad taabanaysaa. 8 markaad taabato wuxuu ku leeyahay thank you for your answer. jawaabtaada waad ku mahadsan tahay.
kadib dib ayaad u laaban doontaa. Markaad dib u laabato sidii hadday aad arkayseen wixii coins ku jira dhan waan bedelay. Haddeer haddaan tago saddexda xariijimood ee sare kadibna aan fiiriyo coinska waxaa ku darsamay 3 coins ayaa ku darsoomay. marka sidaas oo kale ayaa coinska u aruursanaysaa. haddii aad rabin inaad maalgashato qaabkaasna ayaad kaga samayn kartaa. haddii aad rabto inaad si degdeg ah lacag ugu samaysana lacag ayaad kusoo shuban doontaa oo $5 iyo wax noocaas ah. lacagta aad soo shubatayna waxay ku shaqayn doontaa lifetime, weligeed ay ku shaqayn doontaa oo ma ahan wax expire noqon doona. si aad ugu soo shubatana halkaas add funds ay ku qoran tahay aad taabanaysaa. markaad taabatay ka bacdi waxaad dooranaysaa ama aad xulanaysaa qaabka aad rabto inaad lacagta usoo dhigato. hadday baayir tahay baayir ayaad dooranaysaa oo ay lacag kugu jirto. hadday perfect money ay kugu jirtona perfect money ayaad dooranaysaa. sidoo kale Pocket Pay ayaa jira oo aad lacag kaga soo dhigan karto. haddaba si aad lacag ugu soo shubato perfect money tusaale ahaan waxaad dooranaysaa halkaas waxaad gelinaysaa inta lacag aad rabto inaad soo dhigato. haddii aad $1 rabtid waa 6,000 oo coin. haddii aad $2 soo dhiganaysidna waa 12,000 oo coins. haddii $3 aad soo dhiganaysidna waa 18,000. haddii 4 aad soo dhiganaysidna waa 24,000. inta tabartaada ayaad soo dhiganaysaa. kadibna waxaad gadan doontaa boxyadii aan ku tusayay oo ay shop box meeshay ku qoran tahay ayaad tagaysaa. waxaad kasii iibsanaysaa boxyada midkood ayaad iibsan doontaa. markaad iibsatay kadibna 24 saacadood mar ayaad aruursan doontaa. intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay. haddaba si aan haddeer waxaan ka gudubnay oo aan samaysanay account IMD Box ah. sababtoo IMD Box aan u doortayna aad ay ugu fudud yahay kuwa kale sida Time Box iyo Click Box iyo mideeda kale. midkan lacagta aad dhigatayna waxay ku shaqayn doontaa for lifetime, forever ay ku shaqayn doontaa weligeed, oo ma ahan lacag expire noqon doonta ama waqtigeeda oo dhici doona. waxaan rajaynayaa inaad intaas aan isla fahanay. kadibna haddeer waxaan isla aadi doonaa oo aan qaadi doonaa tallaabada labaad oo ah inaan akoon ama qaabkii akoon loogu furan lahaa Adistera. waxaad tegi doontaa Adistera ayaad tegi doontaa adistera.com ayaad kor ku qori doontaa. markii aad ku qorto kadib hortiisa waxaa ku qoran oo asana sign up oo loola jeedo sameyso. sign up ayaan taaban doonaa. markii aan taabano kadib saddexdan option ayuu ku siin doonaa. optionka koowaad as an advertiser waa qaybta labaad waa as a publisher. publisher inaad iskaga diiwaan geliso laba arrin ayay ku suuragelinaysaa. midda koowaad haddii aad website leedahay lacag ayaad kaga samayn kartaa haysiin aad ku saaran kartaa. midda labaadna direct link ayaad abuuran kartaa sidaas ayaadna lacag kaga samayn kartaa website-kan. midda saddexaad waa as an affiliate. affiliate waa qaab oo dalaal wax ugu shaqeyso oo CPA market ahaan ayaad ugu shaqeynaysaa affiliate marketing. qaybtan mar kale ayaan ka hadli doonaa laakiin haddeer waxaan rabaa inaan kaga hadlo qaybtan lagu magacaabo as a publisher. as a publisher ayaad ka dooran doontaa halka ay ku qoran tahay get started ayaad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato get started waxaan ku tusi doonaa sida loo buuxiyo foomka si aad akoon ugu furato. linkiga waxaan kuu soo dhigi doonaa qaybta hoose oo aad isugu diiwaan gelin lahayd. waxaana ku qoran Adistera registration. qaybtan koowaad ay ku qoran tahay email waxaad gelin doontaa emailkaaga. qaybta labaad ay ku qoran tahay full name waxaad gelin doontaa magacaaga oo saddexan. qaybtaana waxaad gelin doontaa login oo loola jeedo username ayaad gelin doontaa oo magac gaaban ayaad ka samaysan doontaa. waxa aan kuu sheegayo oo dhanna mail ayaad ku wada qoran doontaa. qaybtan waxaad gelin doontaa password. kadibna halkan ayaad waxaad ka dooranaysaa waxaad adeegsato ama aad isticmaasho. haddii aad messenger isticmaasho messenger aad kaga tagi doontaa. haddii kuwa kale aad ka dooran doonto sida Skype, Telegram, Facebook iyo WhatsApp haddii aad ka dooran rabtidna waad ka dooran kartaa. intaas markaad ka doorato mid ka mid ah markaad ka doorato halkan hoose waxaad gelin doontaa waxaad dooratay. haddii aad WhatsApp dooratay WhatsApp numberkaaga ayaad hoostan gelin doontaa. haddii aad messenger dooratayna messengerka waxa uu kaaga samaysan yahay ayaad halkan gelin doontaa. kadibna halkan waxaad ka dooran doontaa payment method. payment method daruuri ma ahan gadaal ayaad ka gelin kartaa haddii ay diyaar ku ahayn oo haddeertaan waad ka gudbaysaa. qaabta waa qaabka aad lacagta kala bixi doontid marka aad lacag ka samayso website-kan. haddii aan doorano oo aan fiirino
qaababka lacagta lagala bixi karo waxaa ugu horeeyay PayPal-na Soomaali xayiraad ayaa ka saaran oo kuma shaqeynayo. waxaa kaloo aad lacag kala bixi kartaa webmoney haddii aad u baahato waad samaysan kartaa, laakiin iyadana waxay ku xiran tahay inaad hesho lambar dibadda ah. Bixam ayaa sidoo kale aad lacagta kala bixi kartaa. labadan webmoney iyo Bixam lacagaha ugu yar aad la bixi karto waa $5, balse PayPal-ka lacagta ugu yar aad la bixi karto waa $100. sidoo kale Bitcoin iyo Tether iyadana waad la bixi kartaa. $100 ayaa ugu yar lacagta ugu yar aad la bixi karto. Bitcoin iyo Tetherna Tether oo laba nooc ah, iyadana waxay ku xiran tahay inaad soo samaysato Trust Wallet. sida loo sameeyana muuqaalka hoos ayaan kuu soo dhigi doonaa haddii alla weyn u ogolaado. sidoo kale webmoney ayaad kala bixi kartaa lacagta aad samaysay, iyo bank transfer inaad bangigaaga si toos ah aad ugu xirato kadibna aad la baahdo. intaas option ayaa kuu furan oo aad lacagtaada ula bixi kartaa. qaybtan ay ku qoran tahay afraid and accept terms and condition, halkan ayaad tig saari doontaa, kadibna waxaad taaban doontaa halka ay ku qoran tahay sign up. sidaas ayuuna u samaysmay akoon Adistera ah. haddeer aniga ma rabno inaan akoon samaysano oo akoono hor ayaa noo samaysan. mid ka mid ah mid cusub oo aan darab dhow sameey ayaan geli doonaa. waxaan taaban doonaa login. si aan akoonkeena publisherka aan u galno, login markaan taabano halkan waxaan gelin doonaa userkeena ama emailkii aan kusoo samaysanay. halkanna waxaan gelin doonaa passwordkeena, kadibna halkan ay ku qoran tahay login ayaan taaban doonaa. markuu isfuro ka bacdi sidaad arkaysaan midkan waxaan lacag aan kaga sameeyaa direct link. waxaana ii abuuran dhowr direct link ayaa ii abuuran, balse waxaa shaqeynaya oo keliya direct linkiga koowaad iyo kan labaad iyo kan hoose oo ugu dambeeya. kuwa kale waa reactive oo ima kacsana, waa la sameeyey oo keliya. haddaba si aad u samayso direct link oo ah wax aan rabno inaan muuqaalkan aan kaga hadalno, waxaad tagi doontaa qaybtan ay ku qoran tahay direct link. qaybtan bidixdaada ah oo ay ku qoran tahay direct link ayaad ku dhufan doontaa. markaad direct link aad soo dhufato, halkan ayuu ku keeni doonaa. markuu halkan uu ku keeno laba step kale ama laba tallaabo ayaad qaadaysaa. tallaabada koowaad waxaad abuuraysaa direct link. tallaabada labaadna direct linkiga ayaad u raadinaysaa ama ayaad ku post gareynaysaa Facebook iyo social media kuwa social media kale, ama haddii aad group leedahay ayaad ku share gareynaysaa oo waxaad dadka u bandhigaysaa direct linkigaas waxyaabaha uu quseeyo. create direct link ayaad marka horena aad ku dhufan doontaa. halkaas ayaad ku dhufanaysaa create direct link ay ku qoran tahay. markii aad ku dhufato sidaan ayuu soo bixi doonaa. sidaan markuu soo baxo, meeshaan waxaad ka dooran doontaa non adult direct link category. meeshay ku qoran tahay oo kore laba option ay ku sii doonaa, adult iyo non adult. non adult ayaad tig saaraysaa si aad lacag fiican ugu samayso. kadibna halkan isaga ayaa si automatic u xiri doonaa, waayo wuxuu ogyahay in aad joogto wadan islaam ah. sidaas darteed erotic ads meeshay ku qoran tahay iska xir. waxaan kula talinayaa inaad iska xirto, waayo haysiinadaada haddii kale waxay soo gali doonaan naago qaaqaaban iyo sex iyo waxa noocaas ay soo gali doonaan. mana fiicna arrin noocaas inaad lacag kaga samayso online-ka, waayo waxay noqonaysaa lacag aad ka raadinayso wadahan ama qaabhan ayay noqonaysaa. erotic ads ayaad qaabkaas u taabanaysaa. markay asaan kuu noqoto waxay caddaynaysaa inay xiran tahay oo aan lagu soo furi doonin. inta kale sideeda ugu dhaaf ama sideeda ugu daa. kadibna halkan ay ku qoran tahay ad ayaad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato waxyar kadib wuxuu ku oran doonaa add new direct link, your request has been submitted. codsigaaga waa la aqbalay ayuu ku leeyahay. you can pass your codes once they are approved. markii lagu soo approve gareeyana koodkaaga waa lagu soo dhigi doonaa. godit ayaad kusii dhufan doontaa. markaad kusii dhufato wax yar ayaan suganaynaa oo refresh ayaan dhihi doonaa. kadibna qaybtan oo direct linkiyada ayay kusoo darsamo doontaa. direct linkiga haddeer aan sameynay waa kaa way haddeer ayay noo soo fasaxeen. waa kaas qaybta kore markaad fiiriso hadday noo soo fasaxeen. waa kaa active ayayna noqotay sidaad arkaysaan. marka hore sidaas ayay active u noqon doontaa. haddaba si aan direct linkigan aan u geyno
website-kii aan soo samaysanay ahaa IMD Box waxaad taaban doontaa halkan ay ku qoran tahay copy. halkaas ayaad taaban doontaa copy ay ku qoran tahay. halkan ay ku qoran tahay edit wax markaad rabto inaad wax ka bedel aad ka samayso hay'aysiintaada oo ay ku qoran tahay copy si aan u koobiyeysan. waan hubin doonaa inaan koobiyeynay iyo in kala halka kore ayaan tagi doonaa kadibna waxaan dhihi doonaa paste si aan u ogaano inaan wadanayn karo. sidaad arkaysaan direct linkiga toos ayaan u koobiyeynay. kadib waxaan isla aadi doonaa website-kii aan soo samaysanay ee ahaa imdbox.com. website-ka markaan isla aadno ka bacdi waxaan tagi doonaa si aan u sameyno hay'aysiin saddexdaas xariijimood ee sare ayaan tagi doonaa. halkaas ay ku qoran tahay advertiser panel ee hoose ayaan tagi doonaa halkaas si aan hay'aysiinta u sameyno. markaan taabano advertiser panel waxaa inoo soo bixi doona qaabkan. si aan hay'aysiinta linkiga aan soo qaadnay si aan hay'aysiin ugu sameyno laba qaab ayaad u sameyn kartaa hay'aysiin. qaabka koowaad waa add the site to view ads, in hay'aysiin maalin walba soo noqnoqoto oo la daawan karo aad ka dhigto, iyo inaad ka dhigto daily bonus xirmo maalinla ah inaad ka dhigato oo maalintii maaragtayo hal mar lagu soo bandhigo oo si xirmo aan lagu soo bandhigo. qaabkan waxay kaaga bixi doontaa ugu yaraan 8 coins ayay kaaga bixi doontaa, laakiin qaabkan coins yar ayay kaaga bixi doontaa. marka midaan ayaan idin tusi doonaa, labadaba isku qaab ayaa loo sameynayaa, laakiin waxaan idin tusi doonaa midda sare oo ah add the site to view ads. markaad ku dhufato halkaas qaabkan ayuu soo bixi doonaa. qaybta koowaad waxaad gelin doontaa hay'aysiintaada title-keeda ama cinwaankeeda aad gelin doontaa. tusaale ahaan waxaan oran doonaa make money easily, make money per click dheh. waxaad doonta aad ku qoran kartaa. qaybtan labaad waxaad gelin doontaa subtitle-ka aad gelin doontaa. waxaan oran doonaa waxaad iskaga qoraysaa oo ah recommended to everyone ayaan iskaga qoray. midda kale labaad halkan target URL ay ku qoran tahay waxaad gelin doontaa direct linkigaaga ayaad paste aad ku dhihi doontaa oo aad soo koobiyeysatay. halkaana waxaad gelin doontaa ay ku qoran tahay file image, sawir ayaad soo gelin doontaa si hay'aysiintaada ay soo muuqato. markaan taabano kadib waxaan kasii dooran doonaa file si aan sawir u soo gelino oo hay'aysiinteeda ay u noqoto mid qurux badan. sawiradan midkood ayaan soo gelin doonaa. markaan sawirka aan soo gelino hoos ayaad usii soconaysaa. halkan ay ku qoran tahay disable active window ayaad taabanaysaa. markaad taabatay ka bacdi waxaad kasii dooranaysaa midda hoose ay ku qoran tahay enable active window plus 1 coin. halkaas aad kasii dooranaysaa. markaad soo doorato halkan kale oo kasii hoosay add value ay ku qoran tahay waxaad ka dooranaysaa waqtiga aad doonayso inay ku kacsanaato. haddii aad 5 second inay kacsanaato aad rabtid, hal coin ayaa laga qaadi doonaa. qof walba soo booqda hal coin ayuu kaa qaadan doonaa. haddii aad rabto 10 second 2 coin ayaa qof walba kaa qaadan doonaa. haddii 15 second ama 15 ilbiriqsi haddii aad rabtidna 3 coin ayuu kaa qaadan doonaa. qaabkaas ayay u soconaysaa. haddii sidaa rabtid aad ka dhigan kartaa, laakiin aniga waxaan uga tegayaa ama 1 coin per click oo 5 second ayaan dooran doonaa. kadib waxaad ku dhufan doontaa halka ay ku qoran tahay add the site to view ads. markaan halkaas taabto waxay oran doonaan waxa yar ka bacdi waa la abuuray. sidaad kor ugu jeedaan waxay oran doonaan waa la abuuray hay'aysiintaada. hay'aysiinteeda waatan waa la abuuray sidaad u jeedaan. haddeer waxaan rabaa inaan lacag aan kaga soo shubto. coinsidii aad samaysay ayaad kaga hay'aysiinaysaa. si aan u hay'aysiino waxaan hubinaynaa halkan ayaan tegaynaa. waxaan hubinaynaa inta coins noogu jirta. waxaa noogu jirta sidaad arkaysaan 168 coin ayay ku jirtaa. marka hay'aysiinteen ayaan imaanaynaa. markaan imaano waxaan ku shuban doonaa intaad doontid oo inta coins aad rabtid aad ku shuban doontaa. aniga halkan ayaan taaban doonaa ay ku qoran tahay 00 oo balancing hortiisa ah. sidaan ayuu soo bixi doonaa. aniga waxaan haddeer aan ku shubi doonaa 200 oo coins. kadibna send ayaan dhihi doonaa. markaad send dhahdo sidaad arkaysaan lacagta way ku shubmaysaa. 200 waxay noqotay 100 daawasho, 100 views ayay noqotay. oo qof walba 2 coin ayuu qaadan doonaa. hal coin wuxuu ku qaadan doonaa hay'aysiinta. coin kale labaadna wuxuu ku qaadan doonaa in loo kiciyo hay'aysiinta toos loogu kiciyo.
hadda waxaan isla aadi doonaa website-keeda qayb saddexdaas xariijimood markii si aan u hubino in xayeysiinta aan sameynay shaqaynaysa iyo in kale. kadib waxaan kasii tegi doonaa meesha ay ku qoran tahay view ads. view ads markaan tagno sidaad arkaysaan xayeysiinta hadda aan sameynay waatan make money per click. waa sidaan ay soo dhigmi doontaa xayeysiinta. qof walba oo markaas xayeysiintan soo booqda wuxuu la mid yahay qof soo booqday direct linkigii aan sameynay. qaabkaas aadna lacag kaga sameyn kartaa. waxaan dib ugu laaban doonaa Adstera akoonkeena Adstera dib ugu laaban doonaa si aan idin soo tusno qaabka loo fiiriyo xayeysiintaada inta qofood daawatay ama soo booqatay iyo lacagaha aad ka sameysay. xayeysiinta haddeer aan sameynayn waa midda sare. si aad u ogaato inta qofood oo soo booqday halkaas ay ku qoran tahay statistics ayaad taaban doontaa. markaad taabato kadib qaabkan ayuu soo furmi doonaa. hadda sidaad arkaysaan dhammaan waa wada zero. wax hadda soo booqday iyo clicks iyo impression oo helay ma jiraan iyo wax lacag aan ka sameynay ma jiraan. waayo haddeer ayaan sameynay, haddeer ayaan xayeysiintii u soo sameynay, weli booqasho ma helin. haddii uu booqasho helo halkan aan ka arki doonto oo zero ah inta qofood oo impression iyo inta qofood oo click siiyey iyo inta qofood iyo CPM-ka ama lacagta aad guud ahaan laga helay iyo revenue-ga ama commission-ka aad heshay inta ayaad ku ogaanaysaa. hadda waxaan linkigan waa linkiga haddeer aan sameynay. waad u jeedaa taariikhda 4 waa 4 bisha 2 2024. marka waxaan rabnaa linkiyadii hore aan u sameynay midkood inaan fiirino. linkigan ugu hooseeya ayaan fiirin doonaa. statistics ayaan taaban doonaa. markaan taabano ka bacdi sidaad arkaysaan linkiga meeqa impression ayuu helay. linkigan guud ahaan 174 impression ayuu helay. wax click ah ma helin, wax CTR ma helin. lacagaha oo guudna laga sameeyay waa 12 senti sidaad arkaysaan. waa kaas booqashadiisa iyo lacagaha aad sameysay qaabkaas ay u soo muuqan doonaan. waxaan rajeynayaa inaad intaas isla fahnay. lacagta ku jirta oo aan linkiga direct link aan kaga sameeyo waad arkaysaa waa 8.66 ayaa ku jirta balancegayga. lacagaha aad sameysay halkaas ayay ku soo gali doonaan. weliba si daqiiqad ay kugu soo gali doonaan haddii alla weyn u ogolaado. waxaan rajeynayaa intaas inaan isla fahnay. qaybtan ayaan isla imaan doonaa oo waxaan idin tusi doonaa sida markaas loo buuxiyo ama lacagta loogala baxo. waxaad tagi doontaa halka ay ku qoran tahay payment. markaad tagto waad ku dhufan doontaa. markaad payment aad ku dhufato waxaan ku sharxi doonaa qaababka lacagta uu u bixiyo sida loogala baxo. how to get the date of your payment. sida lacagta uu u bixiyo website-kan qaababka uu lacagta u bixiyo waxaa ka mid ah lacagta waxaad la bixi kartaa 1 bisha ilaa iyo 2 bisha. haddii maalmahaas ay ku dhaafto waxaad la bixi kartaa 16 bisha ilaa iyo 17 bisha oo bil walba. intaas maalmood aad lacag kaga baxsan. 1 iyo 2 oo bisha haddii ay lacagtaada gaari weyso $5 waxaad la bixaysaa 16 bisha ilaa iyo 17 bisha. withdrawalkiis xilliyadaas ayaa furan. midna aan kuu sii raayo withdrawalka si automatic ay u dhacaan inta badan markii aad ku save garaysato. lacagahan waxay bixin doonaan taariikhahaas ay bixin doonaan. bishana sidoo kale lacagta koowaad oo aad dirsato markii ugu horeyso aad lacag ka sameynayso haddii aad lacagta dirsato 1 bisha ilaa 2 bisha 2 isbuuc ay on hold lacagtaada ku jiri doontaa. kadibna isbuuc xiga ay ku soo fasaxi doonaan. wixii ka dambeeyay si automatic ah ayaad lacagta aad kala bixi doontaa. intaas waan rajeynayaa inaan isla fahnay. meeshan ay ku qoran tahay documents oo ku leeyahay document soo geli ID-gaaga iyo waxyaabo la xiriir aad gelinaysa. haddii aadan haysaninna wax dhibaato ah ma lahan oo aad ka soconaysaa. ma aan wax lacagtaada waxyaraad saari kara. halkan waxaad ka arki doontaa lacagaha aad ka sameysay iyo lacagaha aad la bahday ayaad ka ogaan doontaa oo waa qaybta history-ga and transactionada ayaad ka ogaan doontaa. sidoo kale waxaan rabaa inaan idin tuso sida profile-ka loo buuxiyo iyo lacag bixinta iyo waxyaabaha la xiriira. waxaad taabanaysaa profile. markaad profile taabato halkaas waxaad ku qoraysaa magacaaga aad gelinaysaa. halkan Telegram ama WhatsApp ama waxaad haysato aad gelinaysaa. sidoo kale payment method-ka Soomaali ayaa ii dooran. haddeer waa arkaysaa lacagta ii dooran waa USD waa dollarka Mareykanka. waxaana ii dooran Tether
ama TRC. lacagta ugu yar oo TRC markay tahay waa $100 aad la bixi kartaa. sidoo kale Bitcoin waa $100. lacagaha kale ugu yar aad la bixi karto waxaad kala bixi kartaa Web Money. waa lacag ka sii yar. Web Money $5 ayaad la bixi kartaa. intaas waxaan rajeynayaa inaan isla fahanay. kadibna halka ay ku qoran tahay save my profile ayaad taabanaysaa. markaad wax kaga bedesho halkaas save my profile ayaad taabanaysaa. adiga waxaad dooran kartaa haddii aad $5 aad samaysaba inaad la baahdo aad rabtid Web Money ayaad samaysanaysaa. Web Money ayaadna ku xiranaysaa ama Paxful ayaad akoonka soo furanaysaa. kadibna isaga aad la bixaysaa. kadibna Perfect Money ayaad ku shubanaysaa. qaabkaas ayaad lacag kaga samayn kartaa website-kan. waxaan rajeynayaa intaas inaan isla fahanay oo maanta wixii ka dambeeyay aadan cudurdaar ka dhigan doonin. lacag laguma samayn karo online-ka adigoon wax lacag haysan. waxaan rajeynayaa inaad wax wanaag ka faa'iideen. intaynu muuqaalkan mid la mid aynu dib uga kulmi doonno haddii alla weyn u ogolaado. isma dhaafin saaxiibayaal. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.